waan salaamay qof walba saacadday u tahay ayaan ku salaamay aniga waa subax ayay noo tahay qof walba saacadday u tahay galab habeen maqrib runtii waxa waaye doodo badan oo ka taagan garoonka cusub ee magaalada muqdisho runtii waxa waaye loo yabahay 5 iyo 30 kilomitir ahaa doodo badan oo ka yimid garoonkaas qaabkiisii habka ay wax u socdaan waxyaaba noocaasaan rabnaa inaan runtii bal iftiimino oo runtii aanan dood waxa ah runtii constructive ah oo runtii waxa waaye dee garoon caalami haddii la sameynayo wuxuu u baahan yahay qaabab iyo wax international runtii la adeegsado ama space runtii ku filan in la helo marka nin runtii khabiir u ah ayaa arrimaha doodo badan runtii waxa ka qaba waa maxamed soo dhawow runtii maxamed abukar waa nin khabiir ah runtii aviationka Soomaaliya ilaa iyo 1982 ka soo shaqeeyay ahaana station officerkii waxa waa beedhabo boosaaso runtii madax ka ahaa runtii qaybtii garoomadii waxa waa xataa laftarkeeda oo runtii laga aasaasay garoomadii boosaaso boorame beledweyne iyo garowe runtii wax badan ka soo shaqeeya waa nin runtii waxa garoon hadday timaado si weyn waxa waa runtii ugu soo shaqeeyay kana soo shaqeeyay ikawa shirkadda la yiraahdo ilaa 93 ilaa 2005 oo runtii waxa waa yaqaan waxa aan hadda ka hadlayna ama aviation sidiisaba qayb weyn ka ahaa soo celintii waxa waa xafiiska duulista hawada Soomaaliya ee dalka Kenya waxa waa laga maamuli jiray marka waxa waa runtii nin waxa waa runtii waxa aan ka hadlayo ama waxa aan runtii waxa waa rabno inaan waxa waa wax ka niraahno runtii khibrad u leh marka maxamed soo dhawaayaan ku leenahay maadaama nala joogtid avocado maxamed dooliya nala joogo cali aadan waa soo dhaweynaa xasan gantaal kagaame maxamed adigoo ah farax shoob iyo nuur iyo xasan hadda nagu soo biiray intaba waxa waa runtii waa salaamaya dad kale hoos naga dhageysan doono iyo raadiyo waxa waa one Soomaaliya 91.9 oo aad runtii waxa waa hawada si toos lagaaga dhageysanayo magaaladan Toronto oo runtii waxa waa laftarkeeda dad badan ay runtii kugu sugayaan halkaas warbixintaadii oo runtii aad u xiiseynaya runtii bal soo dhawaad maxamedow hadda inteenaba iska sii bilaaban kara dadkan ayaa nagu soo beeri kara doodana kasoo qayb geli kara wixii su'aalo iyo wixii jawaabo aan hadhow ayaan ka wada hadli doonaa bal maxamed marka hore waxa waaye soo dhawow maadaama hadda nin khibrad iyo arrimaha ule aad tahay bal marka hore sharaxaad guud naga sii garoon casri ah iyo baahida ay waxa waa Soomaali bal u qabtay garoon casri ah maadaama hadda aadan Cabdulle Cusmaan garoonkii waxa waa aadan cadde aan leenahay in nagu filan ee hadda ka soo degto dalkeena xaaladdu ku jira aan ognahay maadaama aan iri garoon weyn ayaan u guuraynaa bal garoon weyn baahida aan u qabno iyo wax uu yahay iyo waxa aan ka doonayno bal nala wadaag bal marka hore soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بعض إذا عدن دنيا ديسنا دمان وادي السلام عليا. مستر كله وحاسي جارو سلام عليا أبوكات الدولي وحكم لها ذات كارنها أبيش كصومالية شرع خان إن إذا مهان وكسر درادري أقوم في عنا ولا يا ممكن أوريسي أنت كندا عن كسر باقي مركه هولاس عن ودودني marka ninkaas waxaan salaamayaa si gooniye salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intiin kala Soomaali meel kastoo joogtaan marka insha Allah taala aan bilaabanaynaa horta sidaba marka laga hadlayo garoon ama arrimo garoon laga hadlayo muhiimaddu waxay tahay in aan fahamno halka aan ku wajahana ama halka adduunyada ay ku wajahan tahay in si fiican loo fahmo si arrintaas marka loo fahmo waxaa laga maarmaan ah in la soo qaato miisaan isbarbardhiga waxa aan haysano ma nagu filan yihiin mise baahi keenaysaa jirto waxaan haysano inaysan nagu filneen oo qasbaysa inaan meesha aan joogno meel ka sishaysa aan aadno si aan arrintaas marka u miisaanno waxaa laga maarmaana inaan hareeraheena fiirino marka si aan hareerna u fiirino bal aan fiirino garoomada wadamada nagu xeeran inta ay la eg yihiin iyo qaab dhismoodkooda intuu la eg yahay haddaan ka soo bilaabo dalka Kenya Jomo Kenyatta waa 6 kilomitir iyo bar square macnaha garoonkooda ballacooda waddanka Tanzania Julius Nyerere Dar es Salaam waa 10 kilomitir oo square ballaciisa Bole Airport wuxuu ahaa asalkiisa mid lamid ah Soomaaliya 2 ilaa 3 kilomitir square laakiin waxaa lagu suubiyay Ethiopia Bole Airport wuxuu ahaa mid 2 ilaa 3 kilomitir balse waa la waasiciyay oo la gaarsiiyay ilaa iyo 18 kilomitir ilaa 19 kilomitir oo square xagga 15 kilomitir ilaa 18 kilomitir oo square balse garoonkaasi wuxuu ku soo dhawaaday magaaladii hadda waxay u guurayaan oo garoon cusub ka dhisanayaan bishift meel la dhaho garoonkaasoo baaxadiisa ay noqon doonto 35 kilomitir oo square waddanka Rwanda oo ah waddan aad aragteen saas ahaan Soomaaliya sida haddii la qiyaaso inuu naga yar yahay
garoonkooda hore wuxuu ahaa 6 kilomitir iyo bar laakiin hadda garoonka cusub ay dhisayaan Bugasera ay ka dhisanayaan waa 15 kilomitir iyo bar dadka fahamkooda aad u sarreeya xagga garoomada oo ay ka saaciday aqoonta aviationka waayo Uganda ninkii ka ahaa madaxda regional officerka intaan loo soo rarin Nairobi Kenya lagu xukumayay dalka Masar waa ninkii madaxda u ahaa markii la aasay East Africana waa ninkii lagu aasay madaxda ka ahaa ilaa in muddo ah soo barbaariyay marka aqoonta ay dhaxleen darteed ayaa waxay baday in garoonkooda ugu fiicnaado garoomada ku yaala wadanka oo 19 kilomitir iyo bar oo ahaa garoonkooda hore midka cusub ay South Sudan hadda ka dhisaan uu yahay kaleega la yiraahdo 29 kilomitir iyo bar annaga Soomaaliya cad airport waa 2 kilomitir iyo bar ama 3 kilomitir iyo bar square inaan horta idaacaddan imaado oo warbixintan iyo baraarugan dadka sii waxay ugu qasbay marka waxa weeye marka aan arkay documentiga New Mogadishu Special Economic District ay diyaariyeen New Mogadishu Development Cooperation ayaa waxay gashay halka loo socdo ama hal ka duwan aan soconnaa oo arrintan ay Soomaaliya halis ku tahay qaabkii u socoto sababta marka aan u soo bandhigayo ma aha inaan wax aan aradayo ama kirtaas garanayo waxay tahay bal halkaan u soconno iyo halkii adduunyada u socoto sida isku dhaafsan tahay inay bulshadana Soomaaliyeed ay arkaan haddii loo baahan yahay marka dib isugu laabana marka garoonkaas aada cadde 2 kilomitir iyo barka waa garoon aan lahayn xataa simple approach lighting oo ah dadka aviationka yaqaana ayaa fahmi kare waa non precision approach waayo simple approach lighting wuxuu u baahan yahay 420 mitir runway endiga kadib in nalalkaas ay ka diyaarsanaadaan ma qabno precision approach kana waa 900 oo mitir oo labada dhinac 1800 oo mitir loo baahan yahay marka non precision approach ama non instrument runway asagoo qalabka loogu talagalay garoonkeena ma qabiyo hadii aad ana runway visual range loo subin lahaa oo macnaha precision approach lighting system ka cat 1 cat 2 lan wadankeena cimiladiisa fiican loo heli lahaana hadda iskaba dhaafbo marka wax aad uga naxay tahay garoonka cusub oo la diyaariyay hatta systemkan laga hirgelin karo waayo runwayga waxay ugu talagaleen kaliya waa 4 kilomitir oo xiran waayo dhinacyada garoonka waxa automatically ku dhagan deegaan oo ah macnaha premium living district iyo maxaa la dhahaa central district waxaan moodaa marka garoonka Muqdisho maanta aan haysano in uu dekada ka xigo dhanka galbeed garoonka mustaqbalka aan aadaynana oo si waxba ka duwaneen kan balse uu ka marayo kaliya xagga galbeed marka hadaan intaas uga soo gaabsado aan fiirino socdaalka adduunka ana tadawurka uu soo maray iyo taariikhda uu soo maray waa 3 generation waxa la yiraahdo globalization qarnigii 15 ilaa 18 waxa hagaya caasimadaha si transportiga ama maraakiibta marka degmada ama caasimadu waxay ahayd mid dekada iyo agaarkeeda kaliya ku kooban oo aan intaas ka baxsanayn qarnigii 19 iyo 20 waa xilliga la yiraahdo Post Forest ama Companigan Fort la yiraahdo oo loogu macdaray society waa xilliga runwayada ama halaha railwayada iyo baabuurta la develop gareeyay ay bilaabadeen wax leedahay sarbabanka ay magaalooyinka ku fideen si joogto ah magaalooyinka agagaarkooda laakiin xilliga maanta aan taaganahay waa network society-ga marka waxa diidaa waxa liid gareynaya maanta development airport concept-ga sida garoonka dalkaas loo develop gareeyo ayaa hagaysa waxaana u aasa waxa ay yiraahdaan sida loo isticmaalo dhul deegaameedka garoonkaas iyo dhulka ku xeeran sida loo adeegsado waxaana xudunta arrintaas hirgeliyo oo loo adeegsada ama loo idmada waa master planka iyo architecture-ka macnaha sida loo diyaariyo waxa la feasibility-ga
master plankaasita loo diyaari waayo. Master plankaasita waa qaabka iyo qanuunka 100 years soo socda loo isticmaali doono garoonkaasi adeegiisii architecturekiisa waxba laga bedeli karin. Marka airportka maanta wuxuu noqday mid casriyeeya ganacsiga adduunka. waa waxa loogu bixiyey magacyadan faraha badan leh ee midba adeeg gooniya ama baaxad gooniya uu leeyahay, sida airport city, aerotropolis, sky city, airport parking ama aeropolis. Marka waa magacyo kala duwan, baaxadda ayay ku kala duwan yihiin iyo shaqada ay kala qabanayaan, laakiin marka laisku soo jamciyo kulligood waxaad moodaa in ay hal shaqo oo isku mid ah kulligood ay suubinayaan. Marka fahamka taariikhda garoomadu iyo konseptiga garoonka iyo in la fahmo ayaa waxaa moodaa ummadeenna inaysanba ku baraarugsaneen halka loo socdo iyo halka aan rabno inaan ka maaragtay qayb qaadano oo aan u diyaar garowno. Marka waa intaas ayaan kusoo koobayaa fahamka guud ee ah maxaa la dhahaa ii sheeg baahida garoon weyn aan u qabno. waa mahadsantahay maxamed, waa runtii waa kaaga mahad celinayna faahfaahintaas guud. marka waxaa warbixin naga siisaa bal horta garoonka cusub ee muqdisho laftirkeeda laga hirgelinaya. garoon cusub ayaa laga hirgelinaya, bal garoonkaasi muxuu yahay, xaguu ku yaalaa, maxaa bal kaas faahfaahin guud bal naga sii asagana. horta run ahaantii anigu waxaan arkay oo keliya ama sida aan websayada aan ka aragnay waa document ay develop gareeyaan New Mogadishu Development Corporation companygaas la yiraahdo, oo aad ka dhexelaysaan markaad dib u baartaan New Mogadishu Special Economic District. markaan fiiriye marka run ahaantii waa wax aan aad ula yaabay oo aan fikirkiisa aan ii muuqanin, balse inta aanan sharaxaadaas guud aan gelin, horta garoon dhismihiisa maxaa hago aan isweydiino. garoon dhismihiisa waxaa hago waxa la yidhahdo core project team. macnaha core project teamka marka laga hadlayo waa 5 macnaha adeeg ama 5 shirkadood ama 5 maxaa la dhahaa company oo arrimo kala gooniya oo midba gaar u qabto. hadday ahaan lahayd macnaha ii sheeg master plankii, architecturekii, engineeringkii, human capital and manpower skillskii. marka waa projecti aad u ballaaran, dhismo garoon iyo deked waxa la yidhaahdo. laakiin waxaa la rabaa in laga jawaabo 3 su'aalood marka arrintaas laga hadlayo. kow, ownerkiyuu yahay, macnaha client of project. war garoonkan horta sidiisaba lahaanshihiisa yaa iskale. ma garoon dowladdu ay maalgashanayso, ama ma garoon dowladda iyo adduunye isla maalgashanayaan, ama garoon dadka iyo sida idaacadda madaxweynena sharafta leh oo ka hadlay oo dadkana ay qayb qaadanayaan oo adduunyadan ay ka qayb qaadanayso miyuu noqonayaa. waa tan labaade waa lead contractiga. waa hadda dadka aan sheegaya, macnaa kambaniyaasha aan sheegaya yay yihiin, macnaa ma yihiin kambaniyaal caalami ah ee arrintaas qaban kara. waayo garoonka marka la diyaariyo, garoon qarashka lagu diyaarinayo ama lagu diyaarinayo waa qarash aad u fara badan. bilowga waa soo diyaarsan kartaa wixii dowladda looga baahan yahay, dadweynaha waa ka imaan karaan, laakiin waa adduunye aad u weyn. marka si adduunyas u hirgasho waa sida batroolka inta la baaro loo bandhigayo kaleeto ayaa loo bandhigaya. marka wax loo hawoon karo markay yihiin waxaa kula maalgashanaya wadamo aad u fara badan, sida maanta ka dhacayso kaleeto wadanka maxaa la dhahaa ii sheeg Djibouti, sida ka dhacaysa maartay wadanka yada Eritrea maanta oo Sacuudiga kusoo ordeen, sida maanta wadanka Rwanda ay kusoo orday wadanka Qatar. marka waxaaga waa horta kow waa lead contractigaas, macnaha dadka la siiyey ay soo bandhigaan ayay ku xiran tahay. tan saddexaadna waa construction timeline-ka. waayo construction timeline wuxuu imaan karaa aqoonta iyo farsamada dadkaasi ay jideen iyo qaabeeyeen iyo faceska garoonka loo kala dhisayo. waayo garoonka baaxadda dhul ay qaadanayo waa baaxad aad u weyn oo lakabyo iskabaya leh, oo lakabka ugu horreeyana wax ka shaqeeyo, kan ku xigana uu kala qabto, kan ku xigana la qabto, kan kana qabto. marka lakabka ugu horreeya intuu diyaar garoobayo automatically waxay ka muuqan kartaa qaabka ay markay soo bandhigaan adduunyada nala soo falgasho uu u hirgeli karo. halkaas ayba ka muuqan kartaa. si marka arrintaas aan bal uga fiican ooga ogaano aan bal isla bardhigno garoomada nagu hereersan sida ay lead contractigooda ama qaabka ay yihiin aan fiirino.
saan wax badan u fahamno oo ay nooga daadegto halka bal annagu taladana ay taallo iyo halka taladana in lala aado in lasugu noqdo ay ugu baahan tahay. aan ka soo qabano Turkiga airportka cusub ay dhisayaan. lead contractigooda yuu yahay waa shirkad Norwegian iyo shirkad British ayaa iska kaashaday. hadda ogaada annaga Turkiga ayaan u fiirinaa injineeriya aqoon waxaan Turkiya dhisay iyo wax aad annaga noola yihiin ayagay marka baahi u qabatay dad loo idmado arrimahan inay la kaashadaan ay la suubiyaan. aan ku xijiyay dalka Uganda kambaniga dhisay waa SBI waa shirkad Israa'iila iyo shirkad British ayaa iska kaashatay. waxaad iska kaashanayana waa master planka iyo architecture-ka iyo engineering-ka garoonka la dhisayo waayo qolo walbaba wax gooniya ayay ku takhasustay oo qolo wax dhan isku wada taqaana ma jirto waa inay si wada kabaan kulligood. waxaa ku xiga Rwanda Carol ARX iyo Airport Geras shirkad la dhaho Australiana 3 shirkadood ayaa iska kaashaday. haddaan Ethiopia midka hadda ay dhisanayso iyo midka hadda loo balaariyeyba aan u nimaano waa Sidara Group waa kambani caan hadda la yidhahdo Dara Group la yidhaahdo. ZHA kambaniga yidhahdo iyo Perfect Western kambaniga saddexdaas kambani ayaa iska kaashanaya. Tanzania waa IPA iyo NACO waa Netherlandies laba kambaniyo waaweyn ayaa iska kaashanaysa. Kenya waddanka la yidhaahdo dhul ahaan garoon ugu filan ayay qabeen laakiin marka cariiriyoobeen waxa ay 10 sano ka hor soo bandhigeen wax la yidhaahdo Greenfield Airport Terminal oo ay rabeen inay ku baahiyaan garoonkooda. shirkadda marka inay howltaas ka howlgasho la rabay waa shirkadaha Ethiopia u dhisay shirkad ka mid ah oo la yidhaahdo Sidara ama Dara Group la yidhaahdo laakiin nasiib darro hadda Kenya waxay ka dhacay professor Abukato Dolia ila joogaba halka uu garoonkeena ku wajahan yahay ay martay oo dhaqaalaheedii meeshuu maray ilaahayna marsiiyo halkaas ayaan ku burburtay arrinteedii oo wax ka hirgalay haba yaraatee ma jiraan. maanta marka cariiriga qabsaday waxay baday in maanta uu garoonkii Kenya ay lahaayeen uu noqdo mid ay diyaaradihii internationalka intooda badan ay Kigali oo kala guuraan iyo waddanka Tanzania. ana soo laabta marka annaga keena Muqdisho marka hadda waxaan arkayna kaliya waa New Muqdisho Development Corporation kambani la yidhaahdo oo dokumentigaas soo bandhigay. hadda waxa ay la soo shir yimaadeenna wax shirkad caalamiya loo hordhigi karo ama loo bandhigi karo haddamaba ahabo. marka halkaas ayaan kaga gaabsanay arrintaas ita balse aan ku sii socdo marka wax annagana kalifayo aan hortaagan inaan fahmno haddaan u baahan. waxaa naga maqan marka waa fakarka la yidhaahdo airport new concept. waxaan moodaa dalkeenna iyo dowladeenna tan hadda joogtay iyo kuwa hadda imaan doonaba aan rabay inaan ku baraarujiyo inay aad aan u wada fahmno. midda keliya aan ka hadlayana maaha Muqdisho airportiya dhammaan arrintaan ka hadlayo waxay saameyn ku yeelan doontaa garoomada waddankeena ku yaalo dhan iyo maamulada joogo inay si cad wax uga wada fahmaan wax aan sharaxay waayo Muqdisho u gaar maaha dhibaatada meel kastoo waddankeena dadkeena waxaan moodaa inaysanba ku baraarugsanayn. dabcan waxa ugu horreeya laga fikirayo waa technicalka. hadda ogow garoonka Boosaaso markii aan documentationkiisa diyaarinay waxaa la diyaarinay xilliga annaga aan joognay ee uu joogay Sheekh Heriyo waan salaamaya hadduu i maqlaaye ayaan waxaan diyaarinay documentationkiisa ugu horreeyey ee la yidhahdo maxaa la ii sheeg planninga inuu dhismo garoonkaasiita waxay soo jiitantay in muddaa xilliguu bilowdana waa garan kartaa laakiin technically master plankiisa iyo architecturekiisaba iyo samayntiisa waxaa ka qayb qaadatay shirkad Chinese aakhirka because xilligaas shirkad British u taagnayd laakiin waxaa u diiday dad la qola oo rabay annagaa dhisayna oo joogayna oo suubinayna maanaha dagaalkooda uu noqday. marka alla u naxariistay uu hogaaminayay nin ay yidhaahdaan engineer Abbas balse ma ayan noqon because garoon dhismihiisa iyo aqoontiisa waa xeelad u baahan shuruudo gaar oo cid kasta ka bixi karin. tan labaad marka annaga aan haysanay waxa waaye waa resourciga waxa ugu horreeya waa space horta macquul ma ku yamaysataa space macquula ee maanta garoomada casriga ee magacyada loo bixiyey iyo baaxadiisa leh ma heli kartaa waa arrinta horta shuruudda koowaad oo adiga lagaga baahan yahay. raw materialki
aad u baahnayd waddankaaga waxa laga heli karay iyo qaabkeed aad iska kaadi kartay oo wax la heli karo oo macquul ah human resource-ga bini'aadamka waddankaasi macnaha ma u diyaarsan yihiin oo macquul ma tahay in la helo marka raw materialka laga hadlaayo maaha raw materialka lagu dhisaaye waa sustainability-ga waddankaasi laga heli kara xagga dhaqaalihiisa keenna waaba number one waayo bar iyo beer iyo kalluun yaa ilaahayna siiyey marka raw materialki garoonkaasi takabila dhaqaalihiisa ma qabnaa haa waa qabnaa because garoonku waa goob ganacsi ee maha goob hadda kadib laga dhofo laga soo dego banaadamka siday marka hore u fahmayeen iyo waxa yada energy oo kulley waa farsamo la keeni karo iyo capitalka marka annaga waxaan hortaagan waa capitalkaas laakiin capitalkaasayto waxaad u baahan tahay suuqa caalamiga ah in lagu geeyo oo aad waxaagii macnaha aad marketingkiisa aad ugu heshid aad awoodda aad ugu heleed iyo qaabka aad ugu heleed aad u idmato cidda kuu suuq geyn laheed oo geyn laheed oo kuwaan kor ku saxaasno qaarkood gadaalna haddii ay su-aasha u baahato qaarkir timaado aan u shabahi doono marka garoonku wuxuu ku tiirsan yahay waa service oo waa strong sustainability in la helo dadka economiga yaqaana kule si fiican u fahmi karo waa labo waa natural resource-ga oo ilaahay noogu deeqoona siiyey human activity-ga oo labadaba heli karto marka labadaas markay iskaabaan ayay imaan kartaa serviceka sustainability-giisa garoonkana wax weyn ka tali karto wax badanna annaga dalahaana suubi karto laakiin anaga dalkeena maanta wuxuu ku tiirsan yahay sida aan garoonka hadda la suubiyey ee raggan macnaha new muqdisho special economic district ee diyaariyeen waxay ku saleeyeen oo keliya weak sustainability-ga marka wuxuu noqonayaa waa human capital waxay bini'aadamka haystaan iyo capitalka ay generate gareeyeen humanka iyo wax ay ka soo baxo macnaha xooggaas bini'aadamka ka dhasha keliya marka intaas keliyana qof bini'aadam ah oo usoo hawoon karto inuu kula darsado habeelata ma jirto marka garoonka cusub xaalkiisa horta waa saas wax oo maantii oo sharaxaada ama aadisiin karo wax noo soo muuqda arki karana ma aha midna ogaada an dowladda uma shaqeeyo wax aan suubinayna waa baraarug dadkayga iyo dalkayga aan la jecela inay horumarkaasi gaaraan wax aan sharaxayo marka ma ihi nin ka mid ah hawsha socoto ama haba yaraata shaqo kule idinkoo mahadsan waa mahadsantahay maxamed runtii waxaan kaloo ku weydiinaa garoonkan waxaa hadda runtii 35 kilomitr cabirkiisa hadhow adaa noo sharaxi doono in waxa waa areada warshiq maxaa loogu doorta bal horta marka halkaa bal areada wax loogu doorta bal ii sharax bal ama dadkan u sharax bal horta sideedaba haddii garoon la dhisaayo oo muqdishoon la joogo oo laba wajahad waxa la aadi karo waa wajahadda jaziira iyo wajahadda dhanka kaleeto oo la aadayo haddii aan marka wajahadda dhanka jaziira aadno haddaan iskaba dhaafabo cabirka garoonka iyo xuduudaha ku xeeran oo ilaa iyo 25 kilomitr 30 kilomitr ilaa iyo 45 kilomitr loo baahan yahay kusii xeermayso aan iskaba dhaafinabo horta waa xanibay waa garoonka militariga ah ee wajahadaas ku yaallo waayo laba garoon ee midna civilian yahay midna military yahay idinkeeda google garay wuxuu u baahan yahay 150 nautical miles inay isku jiraan waayo garoonku ma aha keliya in laga soo degaayo in laga kacayo ee garoonku wuxuu leeyahay traffic pattern wax la yidhaahdo marka traffic pattern xuduudaas marka garoonka laga degaayo ama laga kacayo ayaa waxay keenaysaa inay ku tahay midda kale ay daboolayso oo aysan jihada noocaasa la aadi karin marka waxa keenay in jihada dhankan la aado warshiq waxa keenay waa baladogle oo dhankaasayto macnaha ku noqday obstacle in xagga jihadaas la aadi karin midna aan ogsoonaano Soomaali inaan fahmin aan u baahannahay annaga horta garoonka muqdisho ayaa maantay ugu orod badan ayaan filayaa garoonka muqdisho maantay haddaan tilmaanyar idinka siiyo waa one aircraft serving hadday hal diyaarad soo degato halkaas diyaarad ilaa servicekeeda laga dhameeyo diyaaradda kaleeto wax service ee haba yaraata helaysa ma laha qaybaha garoon in looga shaqeeyo laga rabana waddankeenu ayr buu ka yahay maba qabaanba annagana garoonkan aan ka hadlayno ee maanta aan tilmaamayno waa garoon markay ugu yaraato 3 macnaha loot ay noqon doonto hala diyaaradaha adduunka ugu waaweyn ugu yaraan 5 ilaa 15 diyaaradoodna ay noqon doonto systemka diilada ee macnaha 4F garoon ah way garoonkan ka fikirayno
isku darka diyaaradaha uu sertifgarayn karo labada saacbo marka la isku daro ilaa iyo 30 ilaa 40 diyaaradood ay yihiin. marka waxaan ka tegayna waa hal diyaarad meesha u socon horta waa meesha bas dadku inay fahmaan aan rabaa. marka muqdisho maanta airport anoona waxba macnaha ii sheeg macaaridaynin xaaladda iyo qaabka iyo arrinta ay yihiin koley dadka ka shaqeeyaaba joogo oo warbixinta qaarkood macnaha hadday cudurdaar leedahay ka jawaabi karo. hadday maanta Turkish Airlines soo degto Turkish Airlines la sugaa ilaahay ka baxdo another service diyaarad kale loo qaban karo maalka oo systemki ground systemka loogu qaban lahaa kulligood availability-giisa ama serviceability-giisa meesha ma yaalo. marka garoonkaan ka hadlayno waa garoon baaxaddiisa ay tahay minimum shaqaalaha ka howlgelayo koley haddii loo baahdo insha allah tacaala aan sharaxaadaha dambe ku dari doono. waa ka bax maasha allah waa mahadsantahay runtii waaya maadaama garoonka dhankaas areadaas waxa waaye xulashada loo xusho aad hadda noo sheegtay waa cabir intee la eg marka muxuu yahay bal muxuu noqonayaa garoonkaas cabirkiisa bal dhuuqiyaasi intee la eg ayaa looga baahan yahay sida hadda naloo sheego bal adiga taas nala wadaag. horta moderatorka waxaan ka codsanayaa usoo diri doonaa bicturadaasna waxaan ka codsanayaa inuu ku kabo warbixinta aan bixinayo hadday suurtagal tahay. garoonka horta muqdisho wajahada la doortay aan ka bilaabo warshiq waa wajahad baaxadeedu aad u weyn tahay. waa dhul siman oo xeeb ku yaallo strategic ah cusub ah oo greenfield airport keenaya biidiciisuna yahay dabiici ammaanna ah oo aad macnaha wax allo xal raba looga helayo. waxaa laga yaabaa dadka Soomaaliyeed aqoon darrada iyo faham darrada iyo baraaruga dowladda looga baahnaa aysan baraarujin ama dadkii loo idmada adeegan aysan baraarujin bulshada waxa ku soo fool leh ee ah nasiib inay macnaha xaggooda uu soo aaday ayaa waxay keenaysaa inaysan fahamkooda aad u gaaban yahay. garoonka horta qaybta ugu horeysa oo la yidhaahdo airportiga aerositeka iyo landsiteka markaad fiiriso minimum waa 10 kilometer square aan haba yaraatee lala wadaagaynin. hadda ogow 10 kilometer markaan ku leeyahay waa baaxadda adeega garoonka degidii kicitaanka iyo serviceka gudihiisa ku jiro laakiin labada jiho ee loo kacayo ama laga degaayo way ka baaxad weyn tahay intaasito oo mid kastaba waxay u baahan tahay 20 kilometer in jihadana laga aado jihana laga aado maaha 20 kilometer inuu dhul bannaan noqonayo laakiin cabirka dhismaha ku beegmayo ayaa wuxuu noqonayaa mid la halmaalo diyaaradda sloopka ay garoonku soo degayso. waayo annaga diyaaradaha maanta garoonkeena ka dogo ee ka kaco hor dadka Soomaaliya ha ogaadaan muqdisho airport diyaaradda noogu weyn oo ka kacdo oo ka degto waa Airbus 341 laakiin diyaaradaha aan ka hadlayo waa diyaarado marka ay soo gelayaan distancega 50 kilometerka ay kusoo beegan tahay ay kusoo wajahan tahay garoonka jihada ay ka degayso aad moodo diyaaraddu inayba taagan tahayba aysan nafsanaynin. marka ma awoodi karto diyaaraddu marka wax obstacala haba yaraatee inay leed jihada ay ka kacayso iyo jihada ay kasoo degayso ee haba yaraatee ka taagaan macnaha ka horgalaan. ogaada garoonkeena muqdisho 1974 ayuu jihada dhanka liida u xirmay markii masaajidka isbahaysiga iyo guriga ummadda la dhisay oo obstacle ku noqday garoonka tegitaankiisa. waa xilliga marka la odarasayay in garoonka alcadda la suubiyo arrinta sabaysa taas ahayd. tusaale cad ka soo qaat garoon kastood ka degaysaan fiiriya meeshaad ka degaysaan jihada diyaaradda u kacayso iyo jihada diyaaradda ka degayso waa dhul aad u bannaan. markaad ka soo qaaddo garoonkan aniga Minneapolis aan ku noolahay deegaamada ku xeeran St. Paul Bloomington iyo meelaha kasta ku xeeran kulligood garoonka jihooyinkaasayto guryaha ka taagan guri 2 dabaq dhaafi kara kuma jiro. baaxadda garoonka guryaha dabaqyada ku aadaan waa dhanka wajahada calooshiisa garoonka ku aadan. marka dhanka dabada dhinaca 180 badbaado ka jirto dhanka kaleeto waqooyi ee garoonka ay ka jirto markii baaxadaha aan sheegi doono laga gudbo kadib wax kastoo ka dhisma problem laakiin jihada laga kacayo laga degayo culays badan ayaan saaraya. su-aashana marka aad weydiisay haddaan usoo degaado raalli kaa marka qiyaasta dhul marka loo baahan yahay muhiimadda horta marka taas maaha. muhiimaddu waxay tahay dadku horta inay fahmaan ama fahamka bini'aadamka
annaga Soomaalida ay fahamto waxay tahay inuu airportka maanta uu yahay iyo agaarkiisa wax soo saar warshadeed oo wax badan qabanaya. Marka waayo airportka maanta ma aha airportka annaga aan aqooni jirnay, wuxuu noqday qaabka sitiga waa xudunta magaalada airportka ee warshada soo saaraysa wey. Waa regional transferka, waa meesha isu socodka ama ha noqoto gobolada wadanka ama ha noqoto regionalki ama ha noqoto aadiga anaga nagu dhawaa, waa halka ilasaga gudbaayo ee dhaqaale ahaan ganacsi ahaan in ahaan isugu imaanayo. Garoonkuna haddana wuxuu maanta yahay waa global economic control, waa xudunta dhaqaalaha dal maanta kontrolsho. Maanta wuxuu noqday garoonkii. Sifaha garoonka uu u noqdana waxay tahay garoonka markii aad landside-kii aasada ka tagto proximity airportka waa 5 kilometer, airport aerotropics-ka asagana waa another 5 kilometer. Regionalki ayuu imaanaya. Markaas kadib ayaa waxaa imaanaya national development-iga houseski waxyaabaha garoonkan kale ay kusoo sawireen ayay imaan doonaan. Marka distance-iga loo baahan yahay waa over 30 kilometers square inuu garoonka marka hore baaxadiisa kuwaad ay xiran tahay zoneska kadib loo gudbaa haddii ilaahay ka dhigo. Marka si arrintaas loo ogaado waa inaan marka annagu aan noqonnaa dad fahmi karo. maanta large airport kama fakerayno oo 10 milyan 20 milyan 30 milyan dad ku fakaraya manihin inuu serve garay garoonkeena. National ki macnaha airportiga oo sas weynaa idinkuba Google ka fiiriya intuu u baahnaanto. Large regional kama fikirno, waa small regional kaliya ee serve garayn kara ilaa iyo 5 milyan ma heli karnaa. waayo garoonka marka la diyaarinayo looma diyaariyo maanta muuqaalka anaga noo muuqdo ugu yaraan 5 milyan oo 3 milyan oo Soomaaliya dibadda ku nool. Garoonkan main wuxuu serve garaynayo maadaama bar iyo beer iyo kalluun aa leedahay, isaga ayaaba generate garaynayo shaqooyinka ku xeeran garoonkan ee gudihiisa imaan doona haddii ilaahay ka dhigo. waayo waxaan kaa codsanayaa qofka moderatorka inuu sawirkan u gudbiyo maxaa la ii sheeg bulshada. markaad fiiriso garoonka airside-ka iyo landside-ka macnaha sawirka maaha faaraxo hadda aragta bal waxa waaye bal nala qaybso sawirka I don't know sawirka sheegaysa waa sawirka faarax u sheeg bal sawirka insha Allah ana hadda idiin soo diraayo oo okay ina soo dirtaa mooday aniga maya waa ku soo diri karaa sawirka haddii hadda u baahan tahay. waa sawirka macnaha waa sawirka ishoo kaleeta dhib male noo sharaxta. marka waa markaad fiiriso landside-ka iyo airside-ka waxaa ku xigaya terminal proximity-ga. terminal proximity-ga wax kale ma qabanayo, waa airport city-ga, waa meesha hagayso dhaqaalaha garoonka. waa 3 maxaa la ii sheeg adeeg oo officeska hotelska oo garoonka uu u baahan yahay qayb ahaan iyo conference centerska. inta kaleeta marka waa service, waa railway-gii, waa basaskii, waa kaariskii, waa kaarka maxaa la reentigii iyo karta kareenkii. waxaa ku xigaya marka aerotropolis-kii oo ah surrounding ku sii xariisnaa. kulligood marka waa service, waa logistic, waa cargo-gi, waa industrial parking-ki, medical-ki, aviation industry-gi, specialized zone-ki oo ah qaybo kala duwan. hadda specialized zone markaan ka hadlayo waa qaybo kaleeto marka in hadda faahfaahiye ma rabo. garoonku marka waa garoon baaxadiisa 4 region oo isxigta ah. waa regionalki, airport surrounding-ki, maxaa la airport maxaa la proximity iyo airport laftarkiisa. intaas marka la helo garoonku wuxuu noqon karaa warshad wadankaas dad iyo dunyaba wax uga soo saarto ee annaga inta naga badato weliba ummad kaleeto in ay ka shaqayso u baahnaan doono insha Allah tacaala. mahadsantahay maxamed. runtii waxaan la soconaa garoonkan cusub laftarkiisa hirgelintiisa iyo qaabeyntiisa inay u baahan tahay sida data aad noo sheegto kale aqoon caalami ah yees tahay in lala kaashado ama in runtii waxa waaye mataqaana arrintan waxa waaye runtii ay kala hirgeliyaan. waa runta garoonka sidiisaba dhismihiisa waa aqoon caalamiya, waayo wuxuu u baahan yahay iskaashi shirkadeed ee qaybo kala duwan kulligood suubinaya. waayo marka lagu leeyahay airportka runway-ga iyo qaybaha la xiriira shirkada ku shaqo leh,
raamka iyo qaybaha la xiriira shirkada ku shaqo leh terminalkii dhismihiisa qaybaha ku shaqo leh outside-ka waxaas kale aan ka hadlayna kulligood shirkado gooni ah ku shaqo leh marka garoonku waa shirkado iskaashaday oo caalami ah oo dhisaankiisii arrimihiisa kulli soo qabanaya laakiin wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo project leadership team macnaha waa hal company ayaa qaybihiisa kala duwan dadku u baahan yahay u kala qaybsanaya oo diyaarinaya guud ahaan sababta loogu baahan yahay marka garoomada adduunku waxay leeyihiin habraac iyo qiyaas ekaayo ay hegayso oo intana looga bixi karin intana looga bixi karin waayo wuxuu ku salaysan yahay dhismo garoon waa ekaayo annex airport design and construction operationka waxaa hagaya waa annex 14 intana waa qiyaaso cabir aan waxba yaraatee culays haddii ahaan led cabir haddii ahaan led dhismo haddii ahaan led aan waxba meelna looga bixi karin markaad fiiriso environmental protectionka annex 14 ayaa hagaaya waayo garoonkan marka la suubinayo wuxuu xeerinayaa wax alla waxa waddankaasita shuruuc iyo nidaam iyo dadka deegaanka ah sida loo bartagarayn lahaa sida wax loogu qaban lahaa sida loo suubin lahaa annex dhan ayaa maamulayo oo qeexayo waayo meesha garoonka laga dhisaayo meel iska maran oo bad la duugay maaha waa meel bini aadan ku nool yihiin ee la rabo in adeegan laga dhex abuuro marka life styleka qaabka loogu bedeli lahaa loo diyaarin lahaa loo subin lahaa waa wax already ekayo ay meel dhigtay oy diyaarisay waxaa soo raacaya marka manualkii airport designki airport planningki certificate of airportiga ama aerodromkii COS-ki marka iyo dokumentiya fara badan oo kaleeto oo la rabo macnaha in garoonka samayntiisa iyo halbeegyadiisa lala kaashado marka maadaama aqoontii iyo aqliga aviation ay shirkado caalamiya ay u qaateen laysimo gaara kuwaas ayaa lagu qasban yahay in loo hoos tago ay suubiyaan waayo wax ay u dhisaan gareeyaan waa wax liabilitygooda adduunyada ay taqaano lagu soo hirinayo ummadaha adduunkana kulli ay maalgashanayaan laakiin hadday waxay noqdaan malafkan hebel oo adaan kuu dhiibay hawshan hawl waxaan dadkan ka bixi karaan ama soomaali ay taqaano ma haddii ay cidu taqaano turkiyo annagu aanigsanaynay ayaa norwegian iyo british aaday waddan alla waddankii garoon dhisanayo aad taqaanana kulligood gugulgareeya yaa la architectureka iyo designka iyo maxaa la dhahaa master planka dhahaya way idiin soo baxaysaa annagana haddaa dunida jihada u socoto jihaad ka duwan ka aadno garoonka ma suubsan karno daadis waan u leeyahay garoonka muqdishona ha loo miir dayo oo ha loo dib halasugu laabto oo dariiqay lahayd dowladdan joogto ee maanta mudane xasan sheekh hogaayo macnaha dib arrintaana u fiiriyo waayo once uu arrintaas hirgeliyo legasiga loo baahnaa waa gaari inuu garoonka dhisay la mid tahay hadduu arrintaas hirgeliyo wixii ka dambeeyo imaado waxay qayb ka yihiin hirgelinta arrimahaas guud ee la gaaro guusha ayay qayb ka noqon doonaan haddii ilaahay ka dhigo laakiin baahida aan qabna waxay tahay international credible ekayo company waa lama huraan waa lagu qasban yahay waayo shuruudaha garoon lagu dhiso ayaa heerkaas iyo aqoontaas farayso adduunyada marka runtii waxaan ku weydiinayaa maxaa ka dhigaya marka in project leadershipkan ama master plankan ama architecturekan in ay noqoto shirkad caalami ah oo certified ah ama sida ecow hadda adiga aaba sheegtay maxaa ka dhigaya bal dadkaas hadda ku dhegeysanayna bal u sharax horta soomaaliya maantay dadka shuruuda qoray oo aviationkan lala diyaariyey ayaaba maxaa la dhahaa meesha ila jooga maanta maxaa la dhahaa abukato xaba joogaba dooli ana mar labaad salaamayo garoonka soomaalida ee qabaan kulligood maanta waa airfield reasonka airfield u leh waxaa waaye cuniga adigaa dhasha cali waa ula bixi kartaa cabdi waa ula bixi kartaa caasha waa ula bixi kartaa laakiin in cunigaas cali cabdili ay adduunyada u aqoonsato requirementay u baahan tahay garoonka maanta annaga aan qabno waxaan ku dhahay non precision approach lightning system suurtagalka maaha waayo 400 maxaa lahaa konton mitir ayaa runwayga after lightningka loo baahan in la suubiyo suurtagalka maka yahay muqdisho maya garoomada kale waddanka suurtagal maka yahay qaarkood haa waayo marka ay dhisaayeen ayaan layout kaba siinay laakiin ma suubiyaan weli qaarkood maya intooda badanna waa maya marka haddiiba RVA macnaha non precision approach hadduusan hirgeli lahayn oo heegeli karin RVA-na aysanba suurtagal ahayn
waxaa qasbaya waxay tahay garoonku waa airfield waxa Soomaaliya maanta haysato inay Soomaaliya maanta aerodrome hesho ayaaba requirement u baahan marka airport aad raadana airport bishardiyan waa certified airport wuxuu ku imaan karaa all requirementiga garoon uu lahaa in uu lahaan kara garoon marka kan muqdisho maanta maba ka hadlayna kan mustaqbalka imaan doono xitaa arrimahaas ma la tixgeliyey cabirka meeshan ku yaallo markaad fiiriso oo 2 kilomitir iyo barka ah suurtagalba kama aha waayo markaad 4 kilomitir kaliya ay ku jareen oo aad ku darto 3 kilomitir automatically meesha maba taalaba marka fikirka yaala waxay tahay oo qasbayo in shirkad international ay timaado waa uniformity-ga garoomada adduunka qaabka loo dhiso ayaa hal iskeel wada maro ama ku yaalo wadanka Britain la yiraahdo adduunka ugu yar garoonkiisa ama New York ha noqdo garoonku waa uniformity aadan waxba ka bedeli karin distance-ga cabirka runway-ga iyo diyaaradaha loogu talagalay taxiway-ga lubiska parking-ka maxaa la dhahaa airport setting-ka apron-ka waxaa la yiraahdaa maxaa la dhahaa qayb kastoo garoonka mid ah marka each and every aad garoonka ama naaf aad dhigaysid ama light aad suraysid ama system aad ku xiraysid waa cabir go'an ee sida dharka loo jaro oo kale loo jaro waxba aan laga bedeli karin axmed waa gartay runtii waxa waaye iyadoo laga faa'iideysanaya khibradaada waxaan runtii ku weydiiyay hadaa haddana waxa waaye runtii mar labaad sii iftiimisina waa jeclaan lahaa waa maxay philosophy policy-ga laga rabo dowladda bal maadaama hadda waxa dad dowladda kamid ah ay kula joogaan ha ka faa'iideysan taasaan ka wada waxa ugu soo celi aadaata ku dhaca horta garoon in la yeesho ama la suubiyo dowladda wax weyn ayaa maqan oo in la suubiyo loo baahan yahay kana maqan hay'adeena iyo dhismahaana iyo waxa la yiraahdaa maxaa la dhahaa systemka airport operationka aan dib kugu laabta anaga 1974 markii siyaad barre uu qarameeyey 1972 markii siyaad barre qarameeyey adeegyada ajaanibta ah adeegyada Soomaaliya waxay dhex raacday arrimahaas iyo wasaaradda posta laga soo raray qaybta air la yiraahdo maxaa la dhahaa air aviation revenue-ga ama waxa la yiraahdo lacagta overflight-ka aan qaadno iyo waxa la yiraahdo airports-ka waxa lagu wareejiyay oo lagu abuuray shirkadda Somali Airline wixii intaas ka dambeeyay aviation-ka waxa kaliya oo ku shaqeynaya waxay ahayd ATM air traffic management oo kaliya waa tan ka taas keentay air navigation-ka system-ka wadankeena ee 39 ahaa inay qayb kastaba mar dayactir la'aan u baaba'do ilaa Muqdisho uu noqdo VRDM-geeda uu istaago oo aan ku soo harna kaliya communication kaasoo maanta aviation system-kan uu ku shaqeeyo kaliya yahay weli communication xataa CDRCD-ga anaga aan ku shaqeyno waa tagdi waa communication dowladda marka ay airport-ka fikirayso waa system qaawan oo u baahan sida airport-ka uu yahay greenfield airport oo scratch looga soo bilaabayo in airport-ga iyo shaqadiisa iyo shaqaalihiisa isagana bilow laga soo bilaabo oo la diyaariyo waxa ugu horeeya marka loo baahan yahay waxa weeye waa government policy-ga ama national ownership-ka government control in la helo airport in la suubiyo waa abuurista national airport environmental policy-ga garoon markaad suubinayso ogow waxa ugu horeeya oo bini'aadamkeena ku dhici doono waa sunta iyo qiiqa iyo batroolka iyo chemicalka iyo garoonka pollution-ka ama airka ama gudaha intaba ka dhalan doona waxay u baahan tahay maareyn aad iyo aad u siyaasadaysan oo dowladda hay'adaas in dhista looga baahan yahay waxaa dowladda looga baahan yahay land zoning-ka iyo system-ka inay suubiso buffer zone-ka protected area waayo garoonka aan ka hadlayna maaha garoon 4 kilomitir iyo 3 kilomitir waa garoon 30 kilomitir ku fadhiyo waxaa loo baahan yahay diyaaradaha imaanayo noise mapping-kiisa in la suubiyo waxaan ka naqsanahay oo la yaabanahay dadka macnaha garoonkan maapkiisa hor yaallo soo suubiyey airport-ka waxaa ku dhegan 2 degmo war bini'aadam ku noolaan karaan garoon macnaha adjustment-giisa ku dhegan garoon ma ku noolaan karaan waa maya waayo chemical-kaaga dilaya waxaa loo baahan yahay
وأبرز National Airport Environmental Policy NAEP waxaa ku xiga waa zoninka buffer zonka protected area noise mappingka iyo waste managementiga war garoonka la dhisi doona ee weyn waxyaabaha ugu darna imaan doona marka waa waxyaabaha aan bini aadanba u dhowaan karin ee xataa hadday u dhowaadaan kiimikaalka iyo wax ka dhalan doona ay aad u fog yihiin midda kale garoonkeena ma laha naaf bay horaan kugu sheegay marka systemka garoonka cusub imaan doono niman wuxuu wataa qalab radiationkiisa aad u fara badan yahay ha noqdo naaf aidka qaybihiisa kala duwan iyo sistemada garoonka qalabka ku shaqayn doona aad u fara badan taasi marka waxay keenaysaa bini aadamka ku xeeraarsan in ay noloshooda iyo dadnimadooda dhibaato fara badan u geysato simbale diyaaradda maalinta ka kacday macnaha qayb ka mid a maraykanka ee gaaska keliya ka fakaday beel qofo oo bini aadam ah ayaa maanta magdhowgooda la diyaarinoo hayaa marka waxyaabaha aan ka fikirayno yaysan noqon aragtideena midda ku kooban keliya muqdisho iyo diyaaradaha maanta ka dego ee airbus 340 madaxeena keliya oo adduunyadan waxa loo diyaar garoobaya inay tahay meeshii adduunyadu socoto in loo socdo waxaa socdoo kale loo baahan yahay dowladda diyaariso hayado state airport commission ma qabna maanta garoonkeena iyo dowladdeena iyo agaasinka aviationkeena waa system aad u xiran oo loo baahan yahay waayo state commission wuxuu imaanayaa lotka marka la suubinayo waa mid local waa mid maxaa la dhahay regional iyo mid international midka local midka nanka ah waxaa diyaariya garoonkaas hadda meesha uu garoonka shaqaynayo midka stateka ah commissionka ah waxaa isla diyaariya dhammaan garoomada waddanka ku xeeran waayo garoonkan wuxuu serdigarayn doonaa howl alla hawsha maanta annaga wax soo saarkeena loo raro filmaan ayuu soo ceshan doonaa oo maamuli doonaa marka systemka state dhan wuxuu noqon doonaa cooperation lotska diyaaradaha ay diyaariyaan lisooda diyaariyo macnaha taabtrigana marka laga hadlayo soomaaliga shaqo kuma laha lotkaas waxaa diyaarisay ee kaayo adduunyada kala qaybisa waxayna ku xiran tahay frequencyga diyaaradda ay kaga shaqaynaysa waddankaasito aanu soo gudubno marka waxaa ka maqan waddankeena waxyada national ground handling division and structure hada qabda waa sagaal department oo aad u fara badan ha marka waa national ground handling division iyo structurekiisa waa sagaal division oo kala duwan waddankeena waxba qabin waa ground handling divisionka waa cargo and logistic maxana divisionka waa run operation divisionka waxa la dhahaa aircraft training and the cabin service division waa sagaal division ma inaan hoos u sii daadego ma rabo oo macnaha waqtiga ayaa xanibaya marka waa sagaal division kas aan sheegaya marka waa benefit for the local community-ga aan dhahay daatay macnaha ekay annex 16 siday ula falgeleed deegaankii dadka ku nool siday ula qaadan leedahay dowladda oo laga rabo waa tourismki agriculture expert bootska waa dadka aniga lahaa bar iyo beer iyo kalluun iyo ilaahay la siiyey qaabeynteeda nidaamkeeda ayaa aad loogu baahan yahay midda kaleeto waa transportiga ama babalka ha ahaato ama produska ha ahaato ama trainka ha ahaato sidaas si la-eg marka waa waxyada maxaa la dhahaa aviation ground equipment maxaan ujeedaa maxaa garoonka iyo qaabeyntiisa ama shopping ha noqoto ama adeegyadiisa waxbarashada ama waxyaabaha lamidka hala timaado marka guud ahaan marka waxaa laga fikiraya waxay tahay waa special focuska iyo garoonka immediatekiisa oo ah koorka iyo qaybta ku dhegan iyo extensive geographical researchka oo ah historical strategic focuska qaybta la saaray wax hadda laga bilaabayo iyo garoonka qaybaha kaleeta u dhisanayo iyo say u hirgelayaan ayaa guud ahaan dowladda inay diyaariso kulli looga baahaya marka airportigu ma aha airportigi annaga aan naqaanay inta laga dego laga kici jiree airportka maanta wuxuu noqday goob ganacsi oo aad iyo aad u saamayso xagga moolasha shoppingka business centreska central maxaa la dhahaa isheeg managementiga waxyaaba badan ay higsanaya marka dowladdu waxa maanta ka maqana waxay tahay waa ilaa iyo 8 department oo aad u kala duwan ee la falgeli lahaa garoonkan inay subis cidda ka caawin doontana waa international systemkaas imaanayo oo la abuuri doono la qaabeyn doono haddii ilaahay ka dhigo maasha allah runtii waxaa nala wadaagtay haddeertaan dadka runtii waxa deegaanka iyo sida ay u saameynayso ciladaha garoonka ka imaan kara marka maadaama meesha dad ay deganaayeen marka suurtagal ma tahay bal waayahay in dibidujin waxa waa dadka ay aagaa ku dhaqan loo sameeyo dowladda qorshe noocaas bal waxa waa balaankoodii qorshadu wax ma ka aragtay waa aniga kule
waxa jira wax laga sheegaa waxa jiro waxaan sheegayo waa waxaan macnaha rabo baraarugka bulshada iyo dowladda iyo waxa kulib inay wada gaarto u baahanahay waa because waxaan ka hadlayo waa erebixin cusub saa arkayo oo horena wasaaradda ku shaqo lahayd dad lama wadaagin meelna kama aan dhegaysanin waxa aan arkay oo shirkadda maxaa la isaga New Mogadishu Development Corporation wax ay soo bandhigtay oo bulshada inta aragtay ee qiimaysay habarata ma jirto laakiin aan u soo daadego arrimaha guud ee yaala systemka in la fahmo loo baahan yahay horta bulshada deegaanka sida u saameynayso waa arrin aad u muhiim ah waayo waxa ugu horeeya ee garoon iyo dhulka baaxadda marka laga hadlo waa cabsida bulshada ay ka qabto dhulkooda in lagu habsado oo laga qaato ay ka fekerayaan marka ka fikirna marka habraaca garoonka iyo saamaynta deegaanka waa horta mid marxaladaysan erga marxaladeen waxay tahay waa mid u baahan dowladdu inay u fahamto ama u wajahdo siday u kala horeyso inay u qaabayso waa mid mas-uuliyad ka saaran tahay dowladda dabcan anigu qof u dhashay waddankii oo dadkii ka mid aan ahay aqoontii aan leeyahay maaha macnaheeda ama dad badanoo aqoonti leh ayaa Soomaali ka buuxo in loo idmado arrimahan lala kaashadana ay mudan tahay waa wax aan rabo keliya in la raadiyo dadka noocaas in la kaashado aqoontaas farsamo dad kale in la helo loo baahan yahay waay aan u soo dadayna marka garoonka iyo dekedda waa mashruuc mashiin dhaqaale oo dadka lagu abuuro haddana caqabadda kuwaad ee dadka markasta hortaagan waxaa waaye cabsida bulshada hortaagan inteetu anigi lahaa marka ekayo annex 16 wuxuu sheegayaa environmental protectionka wuxuu qeexayaa sida deegaanka iyo dadka ku nool arrimahooda loo daraasayn lahaa waxna looga qaban lahaa oo macnaha loo hagaajin lahaa waayo haddii arrimahan faraha badan leh ay dhulkaas u guuraan waxaa qasaba in life style-ka bini'aadamka halkaas ku noolaa u isbedelo hadday shalay ahaan jireen dad xoolo dhaqato ah hadday shalay ahaan jireen dad xoolo raacato ah hadday shalay ahaan jireen dad arrimo kaleeto ku feegan oo noloshooda iyo miisaankooda kala soo baxa ayagana ay deganayeen waxaa qasaba in life style-ka dadka deegaankaas la bedelo see loo bedelayaa waxaa lagu bedelayaa waxaa loo jahaynayaa tababarka ay la siinayo ayaa qaybna waxay tahay technical qaybna waxay tahay general marka waxaa qasaba hadda intaysanba howle bilaabanin in loo qaabeeyo dadkaasita technical school in loo dhiso loona baro qaybaha kala duwan ee technicalka aan ahayn ee aviationka la halmaala ilaa aviationka waxaa ka curan doono shaqooyin aad u fara badan oo u baahan doono xataa dad Soomaali iska dhaaf inay dad dibad ka yimaadaan loo baahan doono waa aniga leh waayo laakiin visionka inuu qofka leeyahay laga rabaa in dadka deegaanka marka hore la diyaariyo ayay u baahan tahay hadda ogaada haddii dadka deegaanka dhan inta lasoo wada xulo aan gabar iyo wiil laga soo tegin baahida loo qabo 20% xataa ma dabooli karaan horta qalbigeena taas keliya Soomaalida kaleeto dadka deegaankana waxa keliya xaq u yeelan doona waxay tahay inay tababarka koowaad helaan shaqo abuurka koowaadna ayaga loo suubiyo ayadoo la kaashanayo Ekaya Training Center aan ahayn Cabdirashiidey waayo annaga xilliga Soomaaliya maanta aan arkayo wax kale iska dhaafa pilotkii Cabdirashiidey galay aqoonta aviationka Cabdirashiidey gashay maxaa la samayntii iyo maamulka adeega aviationka Soomaaliya maanta waxaan keenaa keliya in ama wasiir ha noqdo ama wasiir dowlad ha noqdo ama agaasimo guud ha noqdo wax u dagaalamaya kala tahay meeqaad shaqaalaysiisay ee qof aqoon-yahan technocratia uu shaqada ka tura laakiin waxa ilaahay mahadiisa haddii systemkan maanta weer galo waxaa soo imaana waxay tahay sidii ahaan jirta xilliga dowladda Soomaaliya aan joognay in Ekaya office oo waddanka ka furmo lead garaysa dowladda ay ka caawinto habkii xulashada adeegiga qaabeynta tababarka aviationka dalka uu leeyahay qof technocratia mahana qofka taan heli karin haddaan hal tusaale idin siiyo marka laga hadlaayo waan gaari doonaa wejiyade wejiga ugu horeeya waa dhismaha garoonka oo ah qaybta aerosadka iyo maxaa lahaa iyo maxaa lahaa iyo landside-ka qaybta aerosideka qof kastoo ka shaqaynaya minimum aqoonta laga rabo waxa waaye 1 sano iyo bar aviation language ogaada
qofka ka shaqaynaya meeshaas waa inuu yaqaanaa luqadda aviationka, waayo wuxuu ka shaqaynayaa waa waa radio telephony ka dhexeeyo ground movement tower controlka iyo airport ground movement controlka, maaha tower controlka diyaaradaha. marka waxa uu ku hadlayo qofka diyaaradda iyo qofka hagaayo iyo qofka ka shaqaynayo kulligood qayb ahaan hadda qaybtii qosasjadalkeeda waa wax la wada maqlayo oo la suubinayo. marka waa ama runway qof ka shaqaynayo ama general aviationka dad ka shaqaynayo ama taxiga qof ka shaqaynayo ama apron qof ka shaqaynayo hangariskii cargoga ama ka shaqaynayo all qaybaha service ka shaqaynayo waxaa ka sabab markii ugu yaraato inuu yaqaano luqadda aviation. qaybahaas kaleetana technicalitigan qofka waa in loo tababaraa. qaybta technicalka ah ee aan ka hadlayno air navig maxaa la ii sheeg qaybta la yidhaahdo maxaa la ii sheeg finance and air traffic management ama air traffic control management procedureskiisa waa iskuul gaaroo la geli doono oo loo baahan yahay aviation school inta la suubiyo wadanka ee kayo training school loola kaashado oo baseka loo baahan yahay la diyaariyo. waayo technically kambaniga internationalka oo qaban doono requirement-yada uu watayba kamid tahay waxayna kamid ku jirtaaba waxaa la yidhahda factory trainingka. marka factory trainingka qayb muhiim ah ayay ku leeyihiin dadka deegaanka ah oo loo qoondeeyey haddii qaabka saxda loo qaabeeyo in la suubiyo. waayo markaad fiiriso passenger division handlingka waa division dhan, ram divisionka waa division dhan, cargo handlingka waa division dhan iyo qaybo kaleeto sagaalka aan soo tiriyey. marka waxa aan ka hadlayna marka waa sidaa ay u kala horeeyaan keliya in bini aadamka ay ku qancaan haddii la helo meesha ku habboonad iyo qaab ku habboonad ciddu kaba haddii la adeegsado inaysan bulshada deegaankana wax ka halaabeynin, bulshada soomaaliyeed ee degan caasimadan wax ka halaabeynin, cid kasta wax ka halaabeynin ay wada gaarayso ay ka badan tahay. waayo waxa loo socdo ayaa waxay ka badan yihiin wax adduunyada aan ugu xirmayno aad u fara badan oo qaabeynteeda iyo warshadeeda leh. waayo hadda maanta arkaysaa dadkana ilaah siiyey bangiyada ama ha noqoto maxaa la kambaniyada ilaah lacagta siiyey waxay kulligood ku feejigan yihiin dhismo guri waxyaaba kaleeto ay ku feejigan yihiin. marka arrintan hirgasho kulligood wax ay hagaajin doonaan ay maalgashan doonaan waxyaabaha adeega garoonka ku xeeran ee baahidooda aan la dabooli karin ee shirkad kastaba u baahan tahay inay shirkad kale la midoodo si ay u hirgeliso. waayo small industry aad u fara badan oo lagu diyaariyo waxyaabaha badan ee soo dhici doono ayaa ka badan wax walbaba. idinkaa mahadsan. maxamed anagoo waqtiga ka faa'iidaysanayno dad badan oo runtii waxa khibrad u leh waxa aan ka hadlayno oo uu ka mid yahay abukaati maxamed doole oo ah ninkii hawada ama aviationka Soomaaliya soo celiyey kuna dagaalamay ama Montreal ama Ekawa runtii waxa xaruntii Kenya ku tiilay aviationka Soomaaliya raggii Soomaaliya ku soo celiyey maadaama uu nala joogo waxaa nala joogo wasiir dawlihii aan ku sheegay aviationka Soomaaliya dad badan oo kale oo khibrad u leh dhankan waa inala joogaan su'aalo badan ku qaba laakiin su'aasheeda ugu dambaysa waxay tahay bal waxaad nala wadaagtaa wejiga koowaad ee garoonkaasi waxa muxuu noqon doonaa ama shaqaalaha ka howlgeli doona maxay noqon doonaan wejigiyadiisa kala duwan ama koowaad ama labaad ama saddexaad bal adoo noo soo koobaya inta aanan su'aalaha dadku gudbin. wejiga koowaad horta waa wejiga hadda aan soo sharaxay ee ah airside-ka iyo landside-ka. waxa ugu muhiimsan oo la rabo in la fahmo waxa waaye qaybta airside-ka iyo landside marka laga soo gudbo wejiga koowaad waxaa ku dhegan airport ku xeeran macnaha terminal proximity ama airport city. airport cityga waa meesha ugu muhiimsan ee garoonka inay kaabto loo baahan yahay marka laga soo tago serviceka iyo waxyaabaha muhiimka ah. because serviceka wuxuu noqday waa runwaygii waa waxyaabaha kaleeto macnaha car parkingkii waxyaabaha lamidka animada marka qaybtan oo proximity-ga waxa ugu horeeya horta waxaa waaye waa railwayski waa busaski waa carski iyo car centerki oo ah serviceki garoonku u baahan yahay ama qaybaha ku dhegan. qaybaha kaleeto oo macnaha ayagana serviceka waa hotelskii waa conferencekii iyo heritagekii. heritageka laga hadlayo waa waxaan lahadeeta bar beer iyo kalluun. nimayo waxaad ogaatiin garoonka marka laga hadlayo wuxuu leeyahay waxaa logistic cargo industrial iyo medical service. aviation industry is specialized economic zone. markaan specialized economic zoneka ka hadlayno kan meeshan ku qoran maahana waa mid ka duwan waayo wuxuu kan ka hadlayaa waa customerska
iyo traditional trade facility-ga maanaa customka trade facility-ga waddankeena wuxuu leeyahay bar iyo beer iyo kulligood oo aniga hadda ka hadlayay marka waxaan heli doonaa waxa la yidhaahdo single window customerska oo ah waxaa ka dhisnay meeshan waa fast import export clearance oo anagu meeshii lagu diyaarin lahaa kalluunka meeshii dalagii iyo arrinka lagu diyaarin lahaa washii diyaarin lahaa meelihii kaleetoo diyaarin lahaa maxaa la dhahaa ii sheeg waxyaabaha kaleetoo kulooda baahaya marka waxa ku hareersan waa bounded macnaha waxay maxaa la dhahaa ii sheeg housingkii cargo terminalkii qaybta kaloo ku xigto waa logisticii ama ha noqoto maxaa la dhahaa freigtkii iyo waxyaabihii loo baahnaa iyo manufacturingkii assemblygii marka intaanoo shaqo ayaa garoonka xuduudiisa koowaad macnaha marka laga soo tago macnaha air side-ka iyo land side-ka aa ku kamayso waxaa ku xigi doona haddii lahdo wejiga kaleeto ee ah regionalka ama airport metropolitanka haddaad aan ka hadlayna ahayd barkinadii environmental culturekii meeshii ama creationkii oo maxaa lahaa dadka ay ku dalxiisi lahaayeen ama laga subin lahaa marketingkii oo maxaa lahaa dhammaan adeegyadan kulli qaban lahaa marka wejiyada way isku xiran yihiin ilaa aan ka gaarna marka qaybta maxaa lahaa national maxaa lahaa ishek development regionka ilaa laga gaaro marka wejiga koowaad waa qaybta kale oo idin sheegay oo ahaa airside-ka iyo landside-ka wejiga labaad waa terminalki wejiga saddexaad haddii la yidhahdo oo aan laga maarmaynin waa regionalka waxay ka dambeeyaan regionalka hadda baahida iyo arrimaha loo qabo ayaa insha allah kulligood imaan doono